السلام عليكم أصحابتي quruxda badan leeseetiin way fiicantiin meel kasta kala joogtaan hadday maalin kuu tahayna maalin wanaagsan hadday galab kuu tahayna galab wanaagsan meesha hadda soo fadhiista maxaa iga barateen waxaa iga barateen duco anoo sida yacni meesha hadda soo fadhiistaba duco ayaan sida waayo dheh marka ducada u arkay inay qalbigayga saacidayso ama inaga oo dhan inagu saabsan tahay taas ayaan meesha la soo fadhiistaa marka maanta ducada ayaa inoo sida qurux badan ka hor intaan ducada guda gelin waxaa in ku waaninayaa insha Allah quraanka inaa ka war haysan waayo dheh quraanku waa qalbiyan buu fiican waa qalbiga ku qaboojinaya mararka qaarkood waxaa jirta amuuro aadan adigu xalin karin laakiin isleedahay Allah yaa ku xaliya oo laga yaabay amuurahaas ama in ay dhibaato kugu furaan wal kugu furaan marka dawadoodu waa quraanka haddii aad quraanka akhrisid مثلا سورة البقرة هداد أخرسد أو كعلسد وحفهمسا إنها دقنانشه لسد يعني القرآن كون بماشي لقى آخرية ماشي كلوا أسكمد لكن داد كبضنا كمد دالان قرآن كسو إن شاء الله قرآن كود دالة هداد قرآن كود داشنا وحب قرآن كدحواي مسوح والبو كدحجران يعني قرآن كوحنا عضو طعام كرام عضو هذا ملسان كريم باكدحجران يعني دقناشا كهيلسا قلبigaaga wuxuu dareemaya walwalka hore ku hay inuu ka baayo waxaad arkaysaa quraanka marka meel kasta ka akhriid xagan ka akhriid xataa hadaadan aqoonin ma aragtay marka la akhrinayo qof akhrinayo ama sheekh akhrinayo macaan baa ku galayso ma qabow yani aayada la akhrinayo waxa ka dareemaysaa naxariis baa ka dareemaysaa soo quraanku waa raxma ama waa meel lagu dago weeye ama caafimaad wax kasta uu wata laakiin kaliya inay u soo jeesatid ma aragtay oo aad akhrisid buka raba maadaama badanka dadka ma akhriyaanba waayo dheh waxa iskaga haystaan quraanka marba soo dhameeyay ma aragtay quraanka iskaga haysay laakiin quraanka hadaa ogaan lahayd dawada uu leeyahay ama suur wala ka qaaday ama suur noloshaada kuugu nuurinayo adigu maadan hal maalin maadan dhaafteen akhriskiis marka insha Allah inta yarwaani iga tahay adigana Ilaahay kugu anfaco anigana Ilaahay ugu anfaco wixii khayraad ama khayr Ilaahay uu abuuray marka aayad waxaa jirta suurada anbiya ku jirta books ka dhan waaye suurada anbiya weeye suuradaas waa suurad ajaa'ib weeye qisaskeeda hadaa dhageysatid ama aragtay macnaheeda aad fahantid meesha fadhidid baa xasdaas roob baa kugu dhixday roob ma kugu daay macaanka yani wallahi sidoo ma aragtay nabiyadu looga sheekeenay Ilaahay u baryayaan Ilaahayna wuu ajiibay fastajabna markuu Ilaahay leeyahay gebgeed suurada oo dhan buu u bogboga saxdaas saabiyaan ka dhex bixin maalin walba ku celiyo suurta anbiya kali akhri laakiin quraanku waa macaan hal la barto gabadh walba iyo qof walba oo muslim ah dhihi lahaa dawaha dawada quraan weeye quraanka baro wallahi ani ahaanteeda marka hore aan quraanka aqoonin ama aan fahmi jirin iska caadi iska aan jirin inkastoo ahaan jiray dadka waligood quraanka dhigta ee daba socda jecel baa iska aan jiray laakiin marka macnihiisa baratid ama marka aad baratid wallahi macaanka ma ka daba halisidba marka insha Allah ina dhigataan ama barataan bay insha Allah in kusoo jeedinaya hadaba aayadahan aan akhrino aayadahan waa kuwan waxaan leeyahay وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ ناداه مركي لهض لربك وكبري أني مسني waxay taabatay gaadhay duru dhib xanuun iyo cudur wa anta arhamur raahimiin adna waxa tahay kan ugu naxariista badan kuwa naxariista fastajabna lahu waynan ka aqbalnay ducadiisi fakashafna ma bihi min durrin waynaanu ka qaadnay ka faydnay wixii dhib haysta ee haystay
wa aataynaahu ahlahu waana u soo celinay ehelkiisii wa mislahum macahum oo ina wax la mid ahna waan ugu bedelay la jirkiisa raxmatul min cindina iyadoo naxariis ka timid xaggayaga wa dikra lilcaabidiin iyo kuwa xusuusan waano ah dadka caabuda. yacni qisadan nebi ayuub markii uu rabbigiisa uu ku baryay isagoo leh dhib ayaa itaabtay adna waxaa tahay kan arxamuraaximiin mid naxariis badan waanu ilaahayna wuu ka aqbalay ducadiisa wuuna ka ajiibay dhibkii haystay waana u soo celiyay ehelkiisii kuwii iyo intuu haystay wax ka badanba. haddaba maxayn ka baranaa qisadan waxaa noogu jirta samir yar oo qurux badan baa ku dhex jirta oo qurux badan oo tusaale inoo ah innaga iyo samir weliba sidoo kale haddana ducada waxaa ku jirta annii massani yadurru wa anta arxamuraaximiin. samirka nebi ayuub wuxuu tusaale u yahay sabirka ugu sarreeya ee qof la gudboonaada xilliga adag. qaabka ducada waxaa alle baryaya isaga oo qarinaya dhibkiisa iyo kuna baryaya naxariista. kelmadaha wa anta arxamuraaximiin waa hanaan ugu wanaagsan ee alle lagu baryo abaalmarinta ama samirka. qofkii alle dartii u samra eebbe wuxuu siiyaa mid wanaagsan ama abaalmarin wanaagsan ayuu ugu bedelaa samirkii maaragtay soo samray. maasha allah ilaahay naga dhigo kuwii qur-aanku anfaca macnihiisana barta. maasha allah ilaahayna naga dhigo kuwii xifdiya. ducadan akhriso waxaadna tiraa allaahuma caalama alqaybi washahaadat faadir الsamaawaati waalard rabbi kulli shay wamaliik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi wamin shari shaydaan washirkahu waan aqtarifa calaa nafsi suu'an aw ajra ilaa muslim. allaahuma caalami alqaybi washahaadat faadir الsamaawaati waalard rabbi kulli shay wamaliik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi wamin shari shaydaan washirkahu waan aqtarifa calaa nafsi suu'an aw ajra ilaa muslim. allaahuma caalami alqaybi washahaadat faadir الsamaawaati waalard rabbi kulli shay wamaliik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant acuudu bika min shari nafsi wamin shari shaydaan washirkahu waan aqtarifa calaa nafsi suu'an. asxaabteyda quruxda badan ducadan akhriso maasha allah aad iyo aad bay ku anfacaysaa. duco kasta oo lasoo daayo ama qof kale ka maqal ama ducooyinkao dhan way ku anfacayaan boos bayna ku buuxinayaan. waana maasha allah ducooyinka yacni wax lagu bedesho ama wax loo dhigo ma leh. yacni ducaba haddaa maqashid ducadu waa faraj weeye yacni faraj aadan adigu maaragta koobi karin qiyaasi karin taaban karin weeye. marka waxaa la dhahaa ducadan markay shay culus uu ku saaran yahay ama rabtid maaragtay waxaadan adigu xataa sheegi karin maaragtay oo culeys uu ku saarayay baa la akhristaa ducadan saasaa la dhahaa. inkastay ducooyin walba yacni marka ay amuuro ku haystaan ama wax ay ku haystaan ducada aad akhrisatidba waxay kuu noqonaysaa magangeli yacni tii ku furatay bay kuu noqonaysaa. marka insha allah duco walba ku celiya akhriya xifdiya badanaana waxaa la sameeya ducooyinka haddaad rabtidba inaad qaybtid ama maalmahaaga ay ka mid noqdaan waxaa loo yeelaa maaragtay aroorti salaada aroorkaas usoo kacdid baa la akhristaa markaas ugu fiican yihiin ducooyinku. yacni aroortii markaad soo kacdid labada ragcadood tukatid ee ilaahay aa baridid ee qur-aan akhristid waxaa la sameeyaa ducooyinka moobeelka lagu soo urursadaa. yacni ducooyinka isagoo fiidiyowyana waa helaysaa isagoo qoraalana waa helaysaa. aroortii alaasida ducada ku duceysid oo ku celcelisid duco ka qiimo badan ama ka dhaqso badan maba arkasidba. waqtiga kale iyaguna ducooyinka ay aadka u macaan yihiin iyagana ajiibkooda aadka u badan yahay
waa maqribka wey, xiliga maqribka ah. Markaa maqribka tukatid ee ducadaada akhristid badanaa ducadaas ilaahay wuu kaa ajiibaya waadna arkaysaa. Yacni ducooyinkaas ugu fadliga badan. Marka insha Allah ducooyinkan aan ku celcelino aynu noqono kuwi maaragtay markay dhib ku dhacdo ama wax culus ku yimaadaan ama maaragtay noloshaada wax la soo gudboonaadaan ma ogdo. Nolosha way iska dhib badan tahay, waxyaalo badan baa kula soo gudboonaanaya, waxyaalo badan aadan jeclaysan ba maqlaysaa, waxyaalo badan aadan rabin inaa aragtid ba arkaysaa. Adigu wax badan aadan rabin inaa aragtid. Ducada micnaheedu waxaa weeye eebo adiga og waxa maqan iyo waxa jooga abuuraha samada iyo dhulka, rabbiga wax kasta iyo mulkiilahooda. Waxaan qirayaa inaan ilaah kale jirin adiga mooye, adiga aan ahayn. Waxaan kaa magan galayaa xumaanta naftayda iyo xumaanta shaydaanka iyo sharkiisa, iyo inaan naftayda dambi u geysto ama aan mid muslim u geysto. Wallaahi ducadan maasha Allah aad bay u fiican tahay, aadna way u qiimo badan tahay, ajiibkeeduna u dhow yahay. Marka insha Allah ilaahayna sideedaba alaysa cabdahu bikaafi ba ilaahay ba yiri soo maaha, muusan ahayn ilaahay mid ku filan addoonkiisa miyuusan ahayn. Yacni inaga ilaahay markaynu barano amaanu cararno ilaahay wuu inaga ajiibaa wax walba, laakiin inagaa maaragtay dib u dhiganaa wax walba, dib u dhiganaa wax kasta dib baynu dhiganaa. Marka insha Allah ku celi ducadan wayna ka anfici doontaa insha Allah. Hadduu fiidiyowgayga ku soo gaadho waxaa kaa codsanaya inaad sii share garaysid, subscribe naysid. Asalaamu calaykum waraxmatullah.